الرحمن الرحيم وعنا ونكسن داوديال meel kasta iyo mar walba oo dunida dacaladeeda ama daafeedeeda ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeeni u fiirso fanaankaaga waxa aan barnaamijkan ka soo daynaynaa xarunta ku taala magaalada London waxana idin daadin doona anoo ah Kaltuun Muuse Cabdulaahi barnaamijkan waa barnaamij aad kaga dhugan doontid funky iyo suugaantii Soomaaliyeed haddaba funky iyo suugaantii Soomaaliyeed isku jiraan week walba waxaan isku daynaa fanaaniinta Soomaaliyeed kay doonaha ahaade inaanu halkan idin keeno isla markaana halkan kaga bogataan fankiisa iyo suugaantiisa taariikhda fanka Soomaaliyeedna inaanu ku adkayno ayaan ugu talagalnay barnaamijkan waxa maanta halkan iigu casuuman oo halkan maanta ila fadhiya aan ugu talagalnay inaan ku daahfurno barnaamijkan u fiirso fanaankaaga fanku sidoo kala weyn yahay ayaa loo kala qadariyaa waa tiirkii fankeenu ka bilowmay waa Axmed Naaji Saad أحمد ناجي سعد مركان شيء قوة وذكرناً runtii ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogto meel walba ay ku nooshahay Axmed Naaji Sacad marka la sheego si fiican baa wada garanaysan wuxuu inaga mudayay inaynu taalooyin u dhisno waxaan ugu talagalay in aan dabatano barnaamijkan maadaama uu cusub yahay oo aan maanta bilownay inaanu qadarinta koowaad siino Axmed Naaji Sacad uu noo daahfuro nasiibna waan u helnay hadalkayaan badinin waxaan ku soo dhaweynayaa Axmed Naaji Sacad aad iyo aad baan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka aad baad u mahadsantahay walaal Kaltuum oo adiga iyo horwarinada iyo madaxda TV-gan cusub waa Beri TV oo igu soo dhaweyseen idoo marka ugu horeysa ma aragtay saad sheegtay oo yahay fanaaniinta marka taas waa idinku mahadinayaa adiga iyo walaalkayga Xasan Duraan يا ماريها ما وليس وعها هوريالك فنك هوريالك تي في ذا صوماليين أيو نويا يعني صح رجي هوريالك يكسو كردية وضنك أمضى صومالية دي وضنك صومالية كسو كردية تي في ذا أو بريفاتك أما قارنو ليه هول وين بو كسو قبتي تاسن الشرف أيو نجمودين هي حسن دران markaas adigoona gabdhii hadda soo baxaytiin waxaan ku rajeynayaa inaad noqotid xiriiri wanaagsan ama wariye fiican markaas saxafi yani journalist fiican Kaltuum adigoo inoo mahadsan tahay iyo walaalkayga Maxamuud Boocan iyo walaalkayga Saadiq oo halkan wada joogtiin aad baan ugu faraxsanahay caawa aan ka soo qayb galay adigu casunteen TV-gan cusub waa Beri TV sidaad ogtahay markaan maqlay waa Beri TV anigu dhiigi baa dhaqaaqyo waxaan ka mid ahay fanaaniinta waa Beri ee qaranka magacyadayna buu yani magacii buu dib u soo nooleeyo waa Beri inkastoo dalka markuu insha Allahu tacaala haddana waa joogaan waa Beri qaranka waa joogaan dalkii waan salaamayaa fanaaniinta waa Beri ee hadda soo baxay marka magacaasna waa isoo jiitay maadaama aan ka tirsanahay fanaaniintii waa Beri qaranka taasna waxay igilisay maalinta farxad gaar iyo didiilo aad iyo aad Axmed Naaji Sacad aad iyo aad baan kusoo dhaweynaynaa anaguna sidaas sideedii iyo si kasii daran ayaa anaga farxad noogu tahay maanta inaan kugu daahfurno barnaamijkan cusub ee u fiirso fanaankaaga in badan baa lagu weydiiyay lagu yiri taariikhdaadii noo soo sheeg in badan baa lagu yiri mataqaanay nooga soo sheekay laakiin taa aan maanta kuma weydiinayo taariikhdaada laga wada diragsan yahay ummadda Soomaaliyeed oo dhan way ogtahay wax aan doonayaa Axmed Naaji Sacad waxaad nooga warantaa fankii berigii hore iyo fanka maanta markaad isbarbar dhigtid waad ogtahay waddanka inuu dumay fankii hore saa u nooleydeen iyo qiimeyntii iyo nolosha ku nooleydeen maanta ma taagna marka in si mutaqaanay fanaan waxa tahay tiir aad iyo adag baa tahay markaad barbar dhigtid maxaad aad iiga waran kartaa wallahi in haddaan kaaga waramo fankii hore iyo kii dambe anigu fanka waxaan soo galay anigoo 18 jira waxaana ku dayday fanaaniinta markaas iga horeeyay oo xamar joogeen oo markaas waxaa jiray kooxda raadiyo Muqdisho oo markaas aad wax ugu heesi jireen oo Maxamed Jaamac Joof Khadiija Cabdullaahi Darees halkaan waan ka salaamayaa Xareed Ismaaciil Duniyi waa joogto aan salaamayaa Faaduma
hiirad faaduma kenya suufi cali qaasin hilowle allah u naxariiste iyo axmed shariif allah u naxariiste rag badan oo iga horeeyey runtii ayaan ku dayday oon raadi muqdisho aan galay 62 ayaan ka mid noqday dadka ama aragtay 62 halkaasaan fankii waxaas ku koobnay raadi muqdisho iyo koox jirtay markaas oo la dhihi jiray riwaayadaha dhigi jireen kooxda hay sheegin iyo koox waxaa jirtay kooxda banaadiriga ah waa badnaayeen kooxa dibadaha maaragtay riwaayadaha ka dhigi jiray iyo kooxda raadi muqdisho riwaayadaha teatraduna iyo magaciisii meesha banaadiriga ayaa masraxa lagu qabi jiray meeshaan riwaayadaha ka dhigi jirnay ayaan raaraaci jiray dadkii iga horeeyey gadaalii waxaa noo yimideen fanaaniinta walaala hargeysa markii labada dal 60 wixii ka dambeeya walaala hargeysana aad baan ugu faa'iideysanay waxaa ku jiray cabdullaahi qarshi allah u naxariisto cali sugile durcalbe saaxiibkii allah u naxariisto kuluc allah u naxariisto dadkii badan cismaan gacanloob maxamed yuusuf dadkii dhan saaxiibaday guroon jire maxamed saciid guroon jire cali fayruus iyo nahaari waxaa noo yimideen koox aad maandeeq dii maqlis iidana walaasheeda waan salaamaya walaala hargeysa kooxda markay noo yimideen xamarne dad walaala aheenoo ayagana aadaan ugu faa'iideysanay xagga suugaanta iyo fanka maaragtay dhaqanka iyo cultureka soomaalida ayagana waa isku dhex darsanay annaga koox waxaan noqonay waa isweydaarsan jirnay yani maaragtay fikradii iyo kulli walaalaan wayna wixii ayagana waa naga faa'iideysteen annagana waa ka faa'iid labada dar marka waa isku duba dhacsaneed fanka aad baan isu jeclaa dadka siyaasad anaga shaqo kuma leli fanaankana sidiisaba xuduud male ummadda soomaaliyeed baan u dhexeeyi jirnay meel kastane gobolladaan tegi jirnay riwaayadaan ka geeyi jirnay basasaan raaci jirnay waa soo dhibtoonay ilaa tiyaatarka markaasi chinaha noo dhisay markii tiyaatarka dhisoo kacaankii dhashay ayaa kooxdii jirtay markaas xoogga dalka iyo kiraadii muqdisho laisku daray iyo wixii marka oo fanaan waxaana laga dhigay fanaaniinta waa beri kadib waxaan furnay tartamo heesaa hirgalay la dhihi jiray wixii idaacadaan ka baahinay wixii ka soo baxay fanaaniinta heesaa hirgalay oo wanaagsanne kooxda waa beri xataa walaalkii saaxiibkeyga xasan aadan samatar iyo cabdulqaadir jubba iyo rag badan baa kusoo baxeen oo fiican kasoo baxeen oo xasan weli wuxuu ahaa markaas beelaho nagu yimid oo askari waana cajibiye codkiisa iyo habka uu qaadaya waxaan u qornay meeshuu ka soo jeediyey beedhabo military hanoola soo bedelaan hanoola keeno fanaaniinta qaranka ka maqday dad walaalaan ahayn oo isku gacana marka waa beriyaan ahayn waa berin waxay leedahay markaas haddana waxaan furnay tartan ciyaar hiddaha iyo dhaqanka Somali folklore dancer ciyaaraha hiddaha ayaan waxaa ka baahinay idaacadda 300 qof ay yimeen gabdho iyo wiil imtixaan laga qaaday 30 qof aan ka soo baxday waxaa jirtay markaas imtixaan baa fanaaniinta hirgalay qofka ku habboon qofkii oo fanka jecel oo durbaanka la socon karin ama codkiisa xun yahay ama habkiisa aan fiicnaan walaalo raalli ah baan dhihi jirnay wixii ku qurux badan stageka ama masraxa ama cod wanaagsan durbaanka iyo teembada la socon karane waa soo dhaweyn ayaa la qaadan jiray meel 300 qof oo 30 qof laga qaatay ka waran habli iyo wiilan markay waxay fulinayeen ciyaaraha hiddaha dhaqanka ee wadanka ka jiro dhan marka fanaaniinta markaa hiddiya dhaqanka kusoo baxday ee markaa ku guuleysatay iyaa kamid ah ayadka xasuusan kartaa waa badiyeen khadiija qalanjaa kamid ah faynuus sheekh daahir waa kamid ah waxaa kamid ah maray liliana gabadh la dhihi jiray waxaa kamid ah sitay manoogta gabadh la dhihi jiray ya waa badiyeen halkaan kuma soo koobi karo wiilasha waa badiyeen marka heesii ciyaaraha soomaali dhan xataa dhaantada waagaas ala qaadi jiray dhaantada waxaa markaasiti bari jiray folkoloorka saaxiibkay maxamed cabdullaahi sungub halkaan waa ka salaamaya ilaahay caafimaadkaas iyo dhoodaan iyo jabuuti waxaa noogu yimid abgaar saciid nin yiraaho soomaali hal wilwila la ciyaari jirtay oo jabuuti
تي سوماليا دن gobolada dhan hees ciyaaraha wilwilo wala saqo gabley shimbir bullo kabeebey waa kala bixi jiray soddonkaas qof aa furin jiray markaa wala saqada iyo mataqaanaa imika waxa tir wala saqadii tir waxa ay sheegtay ciyaaraha badan oo aanan ba runtii aanan ugu garanaynin ibeerey iyo kulli wala saqadu markaa in tabteebaa loo ciyaari jiray wala ciyaari jiray gobolada nin arkab wuxuu macallimiina joogeen markaas ugu madax ahay Axmed Cabdi Gaashaan adoo maqlay asagana waan salaamaya walaalkay meeshaasan hoorihii festivalada dibaddan tagi jirnay barnaamijyo oo dibadaha ayaan ka qayb gal jirnay koobka soo qaadi jirnay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka fanaaniina raaci jireen fanku waa isku duba dhacsanaa runtii hadda dhaantaduna way ku jirtay Soomaa ya kulli dhaantaduna waa ku jirtay kooxdii yaaba dhaantada shareero haddaad hadda gashay youtube-ka khalanjaa qaadaysa haddaad doonaysid xataa waa kaa maqashiina waxa dhaantadan bilaabnay oo waxaanu ka baranay dhaantada ma aragtay markaas saaxiibkay sungub iyo dhoodaan iyo rag noogu yimaadeen deegaanka Soomaaliyeed walaalaha iyaga ayaan ka baranay markaa waa habeynay haddaad gashid hadda youtube-ka waad arkay khalanjo haddii rabtid in yarankaaga qaada wixii dhaantada oo khadiija khalanjo qaadaysa waxaa gacan igu siiyey yuusuf aadan cusmaan aadan walaalkiisii cusmaan aadan walaalkiisa yuusuf aadan ayaa erayadii qaaniga dhaantadii aan sameynay marka haddaad doonaysid marka dhaantada heestaan ku bilaabnay aan ku sheegay dhaantada waxaa dadku waxaa laga yaabaa inay maqleen yani way yaqaaniin Shadela dulka yaga nagaw dimane wa qalaya Saudali araden sharafta dori meiso sharafta dori hiddi yodagan kena horey udigi meiso horey udigi Saudali aradenu sharafta dori meiso sharafta dori hiddi yodagan kena horey udigi meiso horey udigi Shadela dulka yaga nagaw diman waqal lahay shadela dulka yaga nagaw diman waqal tan waa kamid dhaantadan bilaabnay music waxaan ku tunay shareer kooxdeedii shareer tumis ayaan bilaabnay anaga walaalaha iyo jigjigaan ka baranay oo yimideen oo maarta cod laakiin waxaan u sameynay laxan kale iyo koo kale oo jira heesay dhaqan ayagana oo dhaanta ayagana hidii dhaqankan dib u habeynayna hadana oo dhaanta ayagana kooxdeedii shareer iyo khalanjo khadiija khalanjo halkaan ka salaam oo qaadisi ay leedahay diriyaan diriyaan dooxada ka yeer diriyaan diririgle diriyaan dul maqaan u yeer diriyaan diriyaan dooxada ka yeer diriyaan diririgle diriyaan dul maqaan u yeer adoo heesaasi dhaantada waa qaadi jirnay kulli heesaha dibadahaan geeyi jirnay haddana runtii maanta bankii saasaan u wadnay kooxdii waa isku dhisnaayeen kulli say u burburtay dalka 60 iyo magaciisii iyo 9kii Soomaaliya waxaa dalka 89kii markay ay dalkii burbureen fankii hore waa israacay maanta laakiin runtii meel oo laga hagaaya male waxaanu lahayn naadi laysku yimaado tiyaatarka hoostiisaa laysku imaan jiray horta ka hor intaan tiyaatarka dhisin meel sheekh suufi tiyaatarka gadaashiis waxaan ku sameynay jiir kole oo la dhihi jiray naadiga fanaaniinta Soomaaliyeed meel oo dadka muusika aan ku barno meel laysku yimaado dadka lagu habeeyo oo loo tusiyo habka loo heeso kulli marka system markii qaranka system baa jiray tiyaatarka markii la keenay meel weyn baan haysan gadaal tijaabadii hidaha iyo dhaqanka lagu sameeyay hore qolol baa jiray oo music lagu tijaabinay oo dadkii meel ciyaaraha tiyaatarka
waxaa jirta tiyaatarka meesha nalka ninaa qaabilsanahay nalka ka shidaayo kowdhe ninka decorationka waxaa qaabilsanaa amiin caamir iyo magaciisa cali cabdiraxmaan manasir cali maliixaan wixii qurxinta ayagaa ku shuqul lahaa noo imaa jiray oo noo hagaajin jiray adugu nin la arka abwaaniinta waxay lahaayeen nin abwaaniinta madaxa oo shiri jireen markii hees la keena ama riwaayad ayagaa horta waraaqaha akrinayeen waxaa heesta markuu hagaagisan yahay aan deelqaab ku jirin waa saxiixi jireen halaqabtay dhihi jireen abwaaniinta waxay lahaayeen madax maya shaxma abwaaniinta waxa waaye heesaha miraha erayada ayay jeeg garay jireen deelqaafnimaday ka eriji jireen iyo haddii ujeedadeed wanaagsan tahay markaasay noo soo gudbi jireen halaga qabta heestaas aniga qaybta muusigaan xukumayay qaybta muusiga markii ayaga soo gudbiyaan anigana kooxda muusigaan barayay markii riwaayad jirta ama xaflaadka waaweyn madaxweynaha la imaan jireen octoobaraa la sameeyi jiray ciidaha luulyo qaybta qurxintana waxay ahaayeen amiin caamir iyo cali cabdiraxmaan manasir iyo mid iftiin shali jiray nalaha baargaalna waxaas ahaa jiray microfonada nin la arka qayb buu lahaa jiray maanta wixii waa burburay maanta waxawaa fanka wiilal fiican baa jiraya gabdho fiican soo baxeen cod fiican ma haystaan waxay kusoo koreen burburkii dibadahay haddana kulli joogaan oo ma jiro daa life wax u qaadayo sii baa loo gogoynaya internetka lagu qaqabanayo gabal iyo adiga hadda xataa aad heesa ahayn hadda heesaa baan kaa dhigi karaa internetkaasaan ku gelinayaa hadba meel baan joojinayaa qaad haddana joogso haddana wax ayagoo waa cod fiican yahin runtii maxaa jira dad ururiya ay waayeen anaka waa urursaneen waxaa la raba in la ururiyo jaaliida oo masalan london baan joognaa jaaliida soomaaliya ee london jooga inay ay sameeyaan meel oo jaaliida fanka iyo hiddaha inay yacni ma aragtay dadkaan oon martida unahay ona soo dhaweeyeen in loo sheego oo laisku keeno halkaan ka wadnaan rabnay laakiin laslama heli karo magaaladana way kala fog tahay qofkaas waxdina ku imaan maayo intaasoo mabsuud ka yahay halkaas hees lagu qabti oo shaashadda asiska arkaayo halkaasay ku ekaatay arrimaha kula tahay ummadda soomaaliyeed sida ay fankooda u qiimeeyaan dunida kale inaanay ummadda soomaaliyeed saa usii qiimeynba fanka oo ay jecel yihiin inay dhegaystaan laakiin haddana qiimeynta ay lahayd ma siiyaan waagii hore waa la qiimeyn jir maxaa haddana waxaa soo baxay way jecel yihiin dadka fanka haddii fan fiican la soo saaraya dee waagii hore riwaayadan banaadir riwaaya dhigi jireen tiyaatarka walaala hargeysa waxay dhigi jireen riwaayada fiican meel arka riwaayada laga dhigi jira waan xiiseyn jiray meel kursi aad fadhiisatada waayi jirta tiyaatarka 3 biloodaa soco jirta riwaayadii halka riwaayad maanta fanka way jecel yihiin xataa london soomaalida way aad bay u xiiseeyaan laakiin meelay habeeyaan ay wax ay isku yimaadaan riwaayadaa laga dhigi lahay wacyigelin ba hadda aniga koox baan sameeyey oo yaman joogto aniga cid wax yani isiisa male hay-ad kuma tiirsani wax kooxdaas waxaan ku dhisay sidii waa beri camal aniga iskaygu dhisi iyo waxa wiilasheeda halkaan iga soo diraan kuwa haddana yaman dagaal baa ka dhacay way baaba-een kooxdii way baaba-een way ka qaxeen kooxdii nabadoonka soomaaliyeed marka dad fiican bay hayeen gabdho iyo wiilal qaar arday qaarna meesha shaqo u yimid soo tahriibay waxay ahayn dad isku duuban anaa abaabul iskay u abaabulay waan ka xumay hadda heesa badanaan hadda haynaa oo wacyigelin ah insha allahu tacaala waa arkaynaa meeshaan ku fulin lahaa burburka soo u dhacay anuu show ma sameeyo riwaayad jeceyl ma sameeyo meel wax ma sameeyo ummad meeshaan ku dhashay oon ku soo koray iyo ummadda abaal baa laygu leeyahay dalkan ani ka dhashay abaal buu igu leeyahay intaan jirane waxaan qaban karo wanaageed baan ka shaqeynayaa wanaageedii ayaan ka shaqeynayaa haddii alla idmo marka waxaan sameynay marka saas waay wixii haddaad iweydiisiyo wixii hore iyo wixii dambe halkaasaan kaga baxaya su-aalaha waan ku weydiinayaa heesaha wadaniga ayaga laftigooda waan usoo noqonayaa laakiin waxaan doonayaa imika inaad iigu xigsiisid hees baa jirta oo qaadi jirteen waabaa bariyey bilacsan heesta ayaan doonay in yarna maqashiisid heesta waabaa bariyey
waxay erayada cali sugulaale laxnigana anaa sameeyey markuu ma aragtay gacaanka dhashay anaa hees waxaan soo banaanaya cali sugule oktoobar waa daruuri lacdayoo soomaalida u daado ay ku doogsadeen xoogi baa dadaalo xukunkii dalka haysta annana waa ku raacnay oo baryadeen kadib markaas ka bacday 3 bilood ka bacdi haddana waxaan sameynay waabaa baryay bilicsan يعني وقت عصب وباللاوضي او بالعسن ايان كشيكين اسبدلك او سعودي واقس كورس باكو جري جيب باكو جري وقتها إن يربان قام مقشي هذا يا ما وهسا هذه معان تا إن هلك كسر دافن وحنوس نقندنا هسا ونوس نقندنا وداني آيات قاطع لكن واحد دوني إن ير إنا يراد حكرو وهذا أحمد ناتش سعده كل بده هسا شعر كوار قاطع واقي شعر إنه هو مغنى ده مركا ما شعر إنه هو مغنى واقي هراء إما كوين إنه هو مغنى heesaha aad qaaday maxay tahay jacaylka ee ugu xiisaha badnaa bal hadda laba heesood ayaan anigu halkan ku hayaa labada heesood mid waa gabdhahan si ay galeen heesta iyaa leh taasita anaa sameeyey kulli anaa laxanka sameeyo
galo oo galo sheegay go'ay anay igartay mana gacalkayga soo gafay go'ay anay igartay mana gacalkayga soo gafay god aakhira igaroon gabdhaha say galeen god aakhira igaroon gabdhaha say galeen gabdhaha say galeen adees waxaad waqtigan heesi jir waa fiicnaa anuu hadda dee codkii hore ma dhihi markii garaali ahaada haddaan xoogaa waagii axmed maajid dee dhalinyaradii cuslaataan aan ku jira hadda dhalinyaradii cuslaataan ah iska wadaad waxaad xasuusinaysaa waagii hore waxay la tahay ma jacaylkii dib u xasuutaa sacdow ya wadaniga dib u noqonaa heeso kale oo waxaa jira jacayl oo aad qaaday miyay jiraan qaar aad adiga ku khaas ahaa ood adigu naftaada iyo may kan hadda aniga kan ani khaas buu ahaa koo kalaa jira oo saaxiibkayga saciid xarow waa mulaxin weyn oo la yaqaano oo fanaaniintii hore rugcadaaga heesta oo ani muusiga hore dhacanin sameeyey asaa sameeyey laxniga inta hore iyo biraha laakiin saaxiibkeesa ra'yigaan isdhaabsan jirnay anigana waa heestaas dad kalena waa qaadeen gabdhaha iyo may saaxiibkii usaa keenani madaxa muusikan ahaa heesta aad baan u jeclay heeseen xiisey jiri baa ka mid tahay laga gabdh waxaana maryan mursal laga yaabaa iidana waa qaaday maryan waxaa marka heesta waxaa yiraa godob ciil saaxiibkay saciid xarwaan sameeyey laxniga muusig hore dhacun baan aniga sameeyey bas laakiin laxniga maca mira halkaan waan ka salaamaya ilaahay khayr baan u rajeynayaa haddii ay garan lahayd waxaanan gocaanayo imay garab marteene haddii ay garan lahayd waxaanan gocaanayo imay garab marteene sidii aad gurxamaye maniga godob ciilkeed hurdadii gamci waaye amaniga godob ciilkeed hurdadii gamci waaye ay gudii lahayd
abaalkan u gaarayo way garaa adilayde haddii ay gudii lahay abaalkan u gaarayo way garaa adilayde gubtaanyoodaye sidii aan gurxamaye gubtaanyoodaye sidii aan gurxamaye maniga godob ciilkeed hurdadii gam'i waaye maniga godob ciilkeed hurdadii gam'i waaye ما شاء الله ما شاء الله وهيس عضيات قطة دارو له aad iyo aad godob ciil baan ilaha heestaan قدم عيليا sayid xarwaa sameeye oo saaxiibkii heestaan weli waxaan mar qaahira aan tagay koox masri baa tunta heestaan si fiican u tumeen godob ciil aad iyo aad koox masri baa aad bay ayaga xataa la yaabeen ha marra anagana waa tumi jirnay هذه ما شاء الله وهيس هذه معان أبدو نصاب من أبوك waxaan doonayay dhinaca marka inaan u wareegno wadani oo aan jacaylka ka wareegno inkastoo noloshuba jacayl iskaga salaysan tahay oo aanba jeclaaba axmed naaji mata inaan jacayl ku dhamaysano waxay kula tahay kasi jacaylka halkaas lagu jooji fanaan iyo jacayl ma kala maya maya jacaylka halkaas laga jooji hadda waxaan joognaayo ilaa marxalad kale wacyigelin bulshaan joognaa ummadda inaan wacyigelinayna hadda jacaylka axmed naajo dee waad lagugu dhalay oo waad kusoo guursatay oo waad ku dhashay oo imika kuwii aad dhashay baa kuwo kale kusii dhalaya oo kusii dhaqmaya marka jacaylku nagama waa soo marnay kaasito xilligiis waa dhamaaday wadaniyadu waa jacayl wadaniyadu waa jacayl wadaniyadu waa jacayl wadaniyadaynu u gelaynaa hees baa jirta aad samaysay oo la yidhaahdo gees kastaba ka caydhoobay ka cayrownay wey ka caydhownay ka cayroobay maaha aniga ma ka caydhownay kulli jamac ka dhigtay gees kastaba ka caydhownay marka heestaas waxay ila tahay inay tahay ummadda Soomaaliyeed oo aad la hadlaysid leedahay gees kastaba dhinac walba heestaas waxaan ka sameeyey waagii wiilashiina soo baxeen oo ardaydii Soomaali dhalinyaradii jaamacadda ka soo baxay oo bartay dhakhtarnimadii iyo dalkii u soo kacay oo yaa oo lagu qarxinayay oo dheerka Shaamo ayaan heestaas markaan arkay wiilashii lagu qarxiyay ardayoo marka koow noo soo baxay oo dalkii rabaan inay horumar gaarsiiyaan dhanka caafimaadka dhanka yacni maarat horumarka markii lagu qarxiyay halkaas lagu baabiyey ayaan sameeyey markaas waa gees kasta ka cayrownay garashana ka cayrownay aqoontay ka cayrownay marka taasaan rabaa in yar markaan ku maqashiyo iyadoo dhanne oon habeeyeyne aan rabaa ka daawan doontaa kastaba ka cayrownay gees kastaba ka cayrownay
goynay garashana kaxayroonay garashana kaxayroonay gubnay oo gumaadnay oo garaacnay oo raxnay oonay geed aynu ku harsaniyo galoolkii imikana waxaan doonaya in aan ku weydiiyo heesta la yiraahdo dastuurka waxay ila tahay inaad u samaysay dastuurka Soomaaliyeed ayaad u samaysay heesta marka adiga iskale ereyada iyo laxanka iyo waxba adiga kullana sameeyay dastuurka markii la sameeyay waxaan tagay Garowe ayaa laga xusumay halkaas markii oo dastuurka laga sheekeynay shirka laga qayb galay goorma ay markaas waqtigaas wallahi waxaa laga joogaa amaraha 7 sano meelaha sama 8 sano 7 sano laga joogaa markaas heestan sameeyo inaan fikir dastuur iyo dareen gudbin baa leeyahay markaa haye waxaan doonayaa heesta dastuurka inaad in yar anaga maqashiisid waa kan Soomaali weekad ka qaaday oo dadkuna aad iyo aad uga heleen dabcan anigu qodaydo aan aad iyo aad uga helay heesta bandoonayna ku weydiiyo maxay hididiyo heestaas hidiyo waxa ka soo jeeda raxnigeed iyo dhaqan iyo suugaanta walaalaha iyaga Soomaaliland markii xornimada ay oo doon jiray ayaa wax ku qaadi jiray mandeeq iyo kullu ala naxariiste hal suugul ayaa sameeyay erayadaas walaalaha Hargeysa ayaa xamar markay mideen aan ka baranay heesta suugaanta oo fiicneed heestii baa laxnigeed cajibtay marka waxaan u sameeynay dad wax heesta ku galayso yaani ma aragtay oo dadka kicin korto ama dadka ku reebi korto ma aragtay dareen lagu kacayo dareen marka waxaan sameeyay idoo wadani ah oo umada ugu wacyigelinay erayada ayaa si kale ka dhignay marka laxanku waa laxankii laakiin erayada bedelnay aniyo waxaan imaaraadka aniga cali sugule inta uu dhiman Allah naxariiste ayaan aniga markasta xiriiraan leeno dalkii markaan aragnay saas waxaan heestii hidii aan rabnaa inaan wacyigelin ka dhigno tanaan qornay marka aan ku maqashinay yar dalkaagime oo dadkaagu xagee jiraan
haddaydan isu diirnaxay noloshibaad ku duugantiin oo maxaa dawarsigaa ku baday iyoyidiidiyoy oo maxaa dawarsigaa ku baday inkeenaha rihida inkeenaha dooronow rasuulka iyo diintii baynu ku caasino xaqii baynu duudsine waa inaynu ducaysanaa waa inaynu ducaysanaa intaasna waxay ahayd heestii hididiyo hidi oo aan filayo in aad iyo aad uga hesheen taasna waynu kasoo noqonnay iminkan waxaynu gudagelaynaa hurdaayo toos hurdaayo toos yaale ereyada yaale laxanka yaale hurdaayo toos waxaan samaynay burburkii tuu jiray waxaa iga caawinay erayada anugu markasta markaan wax sameeyo raggii hore isla joogi jiren sidii cali sugule raggaan isla soo shaqeynayo axmed cali askar ayaa london joogayo saaxiibkay telefisyoonka ugu horreeyay soomaaliya ninka daaractarka naqdi waay wariyaha asaan saaxiibkay waa tagaa salaameyna asaan hortay qaar mirahane asaa ma aragti maya ii shaandheeyoya iyo habeeyey weyn buu ka qaatay marka erayada aad iyo aad uga hesheen heesaha waxay u badnaayeen wacyigelin waxay u badnaayeen wadani yani xagga jacaylkana dabcan de waanu jaleecnay aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinaya waqtigaaga quruxda badan ee qaaliga ee noo soo hortay waa Bari TV waa mahadsantahay Kartuum adiga iyo inta maamulayaasha waa Bari TV iyo wariyaasha iyo adigaba iyo cameramanyaasha iyo soo saarayaasha iyo Xasan Duraan iyo kulli saaxiibadaydi aad baan ugu mahadinayaa adigu xasunteen TV-gana waxaan waa Bari TV waxaan u rajeynayaa horumar iyo guul iyo ma aragtay waa inaadna idinkana ka qaadataan xagga ma aragtay wacyigelinta ummadda Soomaaliyeed wixii wanaagsan aad sheegtaan oo aad u baahisaan ummadeena meel kasta ay joogaan marka aad iyo aad baad u mahadsantahay aad baan kaaga mahadcelinayaa sida quruxda badan ay walaal mahadsantahay Kartuum aad iyo aad waa mahadsantahay waxaan rajeynayaa inaad waa Bari TV urugtaada noqon doonto nagu soo noqon insha Allah